Dhacdo aad u xanuun badan oo dadka deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada naxdin gelisay, sidoo kalena la yaab ku noqotay ee qaadan waa taasi oo ka dhacday degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Faadumo Cabdulaahi Aadan ayaa nafta dhaafisay walaasheed ka yar Naciimo Cabdulaahi Aadan oo ay wada dhasheen, isku hooyo iyo isku aabbana wada yihiin. Waxaana dhacdadaasi ay noqotay mid ay si weyn uga naxeen dadka deegaanka iyo qoyska labada gabdhood ay ka dhasheen, iyadoo si gaar ah u naxdin gelisay waalidiinta labada gabdhood. Walaal saar aragtidaada ka dhiibo oo sheer garee muuqaalkan si uu u gaaro saaxiibo badan. Mahadsanid, like-na waa inoo muhiim. Sababta keentay in Faadumo Cabdulaahi Aadan ay walaasheed disho ayaa waxa ay tahay in gabdhaha eedadood aabahood la dhalatay oo dalka Mareykanka joogta ay u soo bandhigtay reerka gabdhaha ay ka dhasheen in mid ka mid ah labada gabdhood ay dalka Mareykanka u wadayso soona kala doortaan si reerkooda ay wax ugu tarto, balse ay qoysku soo doorteen qofka loo wadayo. Waxa ayna u soo doorteen marxuumadda la dilay ee Naciimo Cabdulaahi Aadan. Waxaana taasi ay keentay in Faadumo ay aad uga xumaato arrinkaasi, kadibna ay dil u geysato walaasheed la dhalatay Naciimo Cabdulaahi Aadan oo loo qorsheynayay in ay noqoto qofka markaasi loo wadayo dalka Mareykanka. Faadumo ayaa iskuulka waxa ay ka soo waday walaasheed Naciimo, iyadoo u sheegtay in ay meel isku raaci doonaan, waxaana ay geysay meel iskuulka ka fog, halkaasi oo ay 10 meelood toorey ka gelisay ama uga dhufatay. Waxayna Naciimo ugu dambeyntii u geeriyootay dhaawac halis ah oo ka soo gaaray tooreydii ay la dhacday walaasheed Faadumo Cabdulaahi Aadan. Waxaana ilaa iyo hadda ka taagan degmada Galdogob, deegaanada hoostaga iyo guud ahaan gobolka Mudug hadal haynta dhacdadaasi xanuunka badan. Muddooyinkii dambe Soomaaliya waxaa ku soo badanayay dhacdooyin badan oo ugub ku ah Soomaalida, sidoo kalena ceeb ahaa in la geysto, taasi oo ay ugu horeeyaan kufsi loo geysto dumarka, sidoo kale faraxumeynta iyo ilmaha la xadayo.